Nada Al-Qalca oo la shaaciyay waqtiga rasmiga ah ay iman doonto Soomaaliya iyo xogo kale oo ku duugan imaanshiyaheeda. Wasiirka Wasaaradda Soomaaliya ayaa maalintii Arbacada ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in fanaanada Nada Al-Qalca ay ku soo waajahan tahay Soomaaliya. Xidhiidh badan oo aanu la sameynay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Suudaan ayaa waxa aanu wax ka weydiinay goorta ay fanaanada reer Suudaan ku soo waajahan tahay Soomaaliya iyo waxa ka jira warka wasiirka. Waxa ay noo xaqiijiyeen in Nada Al-Qalca ay Soomaaliya iman doonto doorashada Soomaaliya ee madaxtooyada. Ilo xogaal kale oo ka howlgala safaaradda Soomaaliya ee Suudaan ay ku leedahay ayaa waxay noo sheegeen in dowladda Soomaaliya ku howlan tahay sidii ay fanaanada reer Suudaan ee Nada Al-Qalca uga mid noqon lahayd fanaaniinta u ololeynaya madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama la geli doono waqtigiisii ololaha iyadoo goobaha fagaaraha Soomaaliya ku qaadaysa hayse ee ku luuqeynayso luuqadda Carabiga, taas oo ay ku ammaani doonto waxqabadkii uu qabtay muddadii uu joogay kursiga Mudane Farmaajo. Sidoo kale xukuumadda Nabad iyo Nolol ayaa qarashkii ugu badnaa ku bixinaysa sidii ay fanaanada reer Suudaan ee Nada Al-Qalca u iman lahayd Soomaaliya ugana heesi lahayd madaxweyne Farmaajo. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abubakar Dube ayaa isaguna waxa uu ka shaqeynayaa sidii ay fanaanadu u iman lahayd Soomaaliya isagoo adeegsanaya xukuumadda Suudaan. Daawade ma kula tahay in Nada Al-Qalca ay iman doonto Soomaaliya? Fikirkaaga noogu reeb qaybta commentiga, siina share garee muuqaalka si uu daawadayaal badan u gaaro. Bogganna follow si ay kuu soo gaaraan muuqaalo kale oo xiiso badan. Mahadsanid.